الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي طبناد يدروس تاني بش رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. القبلة والمباشرة والضم في نهار رمضان. أدوغو صومن غير كاغي إني شمين أي دعضو هي مباشرة جركينو استابتي ضمي ضمي إن قفكي دي لبدا قف جركودي هجري اسمعانا قيان وإسمارتي لا استابتو arrinta noocaasa maalin bisha ramadaanna ay tahay waa karaahiya la yidhaahdaa, gaar ahaan dadka ay shahwadoodu dhaqaaqayso oo dhalinyartiiyo da-da yar ma habboona, loogana baqaayo inuu jimaac iyo galma ay dhacdo. Qofku haddii uu isku kalsoon yahay hawshaasina ayna dhici karaynin, soonkiisana ayna ka halaabaynin iyadoo wax dhibaato ah male. caaisha radiallahu canha iyadoo arrimahan mar ka hadlaysa oo diidaysa oo dhahaysa ha u dhowaanina sidaasoo kale, lana weydiiyey oo ay tidhi kaana wuxuu rasuulku mid shumiya isagoo oo sooman, uu la baashiri jiray xaaskiisa isagoo oo sooman. haddana waxay tidhi isagu wuxuu ahaa amlakukum liirbih, yacni midka idinku hanasho badan ee xaajadiisa iyo wuu iska adkaa rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam. marka idinku ma rasuulkaad gaadhaan wey, rasuulku wuu isku kalsoonaa oo wuu iska adkaayo muusan dee waxba ka dhici jirin. idinka laakiin yaa idinku kalsoon wey, hadday hawshii jimaac iyo galma dhacdo yaa mas-uulka ah. sidaas daraaddeed baa habboon in aan iyadoo qofku sooman in la kala dheeraado oo dee soomka la ilaaliyo. waqti kooban baa lagu jiraaye in la ilaaliyo biidni illaahi tabaaraka watacaala. wayna dhacdaa la yidhaahdaa in rasuulku nin oday ana u ogolaaday inuu shuminta reerkiisii nin dhalinyaro ana uu u diiday. haddaba haddii uu sidaas qofka mani uga timaadana lazimahu limsaaku walqadaau walaa kafaarata caleyh. haddii qofku intuu reerkiisii taabto ay shahwadu sidaa uga timaado, maalinta gelinkeeda dambena waa inuu afaystuusan waxba cunin, waana inuu soo qadayo maalinka isaga, laakiin wax kafaara ah ma laha biidni illaahi tabaaraka cinda jumhuuri ahlilcilm. madiga iyo waxyaabaha kasoo baxan isaga horay ayaynu u sheegnay. kiibada oo xanta iyo namiimada isku dirka dadka iyo cayda iyo wixii lamid iyo macaasidaasi soonka way dhaawacaysaa, ajirkiisana way daciifinaysaa. soon bilaa ajira ayay kaa dhigaysaa hawshaada. marka layska ilaaliyo biidni illahi tabaaraka watacaala. dad waxaa jira ay haysan neefta qaba, dadkaasi waxaa jira daawo ay isku buufiyaan oo waxoogaa laabtooda u furfurto, oo haddii kale qofku laabtiisa ayaa xidhmaysa, tanafuska iyo neefsigaa ku yaraanaya. daawadaas isagoo oo ruuxu sooman ma isku buufin karaa? haa, wuu isku buufin karaa biidni illaahi tabaaraka watacaala. waxaana la yidhaha daawadaasi laysa aklan walaa sharban, cuntana ma aha cabitaanna ma aha, inamaa huwa hawa, waa uun hawo qofka dee u isticmaalay, hawadaasina ku buri mayso. sidaasaa waxaa fatwooday sheekh ibnu cuthaymiin iyo sheekh ibnu baaz iyo culimada kaleba ayay fatwoodeen. marka qofku isagoo sooman oo hayso waxa la yidhaahdo neeftu ay hayso, daawada wuu isku buufin karaa biidni illahi tabaaraka watacaala. qofka muqma caleyga, haddii qofka maalintii isagoo sooman uu miyir daboolmo, dad baa intay dhacaan bay waxoogaa miyir daboolmayaan. maalintii hadduu qofku miyir dabool uu ku dhaco saacado badan xitaa walow ha noqote qofkaasi waa sooman yahay, soomkiisi waa u jiraa biidni illaahi tabaaraka watacaala. sida waajibka waxaa ah dadka sooman iyo keyrkoodba, soomba keliya ma ahee, in allah subxaanahu watacaala aan ka baqno, inaynu iska ilaalino wixii alla inaga xarimay, oo ay ka mid tahay mushaahadatu alaflaam alkhaliica, waxyaabaha aflaamta ah, filimka iyo musalsalaadkii iyo suurooyinka qaawan iyo aqaanidii iyo heesihii iyo muqaasalaadka gabdhaha sheekada lala sheekaysanayay iyo waxyaabahaasoo dhan wuxuu keenayaa qasaawatlquluub. waxa keena weeye qalbigana jirada kusoo ridaya, kadibna soonkaagiina kaa dhaawacaya. waxaa maanta booskan musalsalkii iyo waxyaabaha iyo kasii weynba
miidiyahan iyo waxyaabahan wasaa'ila tawaasulka lagu jiro ee barahan bulshada ee lagu dhex jiro, Facebook oo fulaan oo TikTok oo qashinkan oo dhan waxa ka buuxa wax qashina ka buuxa. marka qashinkaasi soonkaagi maanta oo dhan indhahaagii waxay ku dhacayaan wax qaawan, marka soonkaagiina waa kaa daciifaya. soon bila ajra baana suuragalay inaad ku socoto biidni illahi tabaaraka wa tacaala. insha allahu tacaala tobankan jalso waxaan iyada ku joojinaynaa qeybtii axkaamta biidni illahi tabaaraka wa tacaala. marka qeyb kale ayaan u gelaynaa oo isla bisha ramadaan hore idinku sheegay, waan qaybin doonaa bisha maadaama waqtigeedu kooban yahay. qeybba waxaan ka siinaynaa insha allahu tacaala qeyb baan kas. jazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.